markii ugu horeysay ee aan arkay muuqaalkan kore ayaan ogaaday xaaladdu inay kasii dari doonto oo waxyaabo kale oo qarsoon ay soo bixi doonaan. haddaba diyaaradan waxay ka shaqeysaa magaalada Muqdisho, macnaha airport-ka ayay joogtaa. marka qaabka loo sameeyay waxaad u moodaaba in markaa garage ku yaala airport-ka gudihiisa in qalab kale iskugu geeyo oo farsamo caadi ah loo sameeyay. qof baa si caadi u sameeyay, alwaax wuxuu geystay motorka wax lagu alxamayo meesha geeyay, sidaas ayuuna macnaha uu diyaaradan qaabkeed u sameeyay. fiiri meesha dhaxay dadku ku istaagaan oo dhulka afiir bal diyaaradda sayta kuraasteeda ayaaba ka sii daran oo waxa waa kursiga qof markuu ku fadhiista xataa lugihiisa ma fisan karo, waa lugaha waa inuu san u laabtaa. kuraastii hoosta la iskaga gelgeliyo oo waxaad u moodaa sidii baabuurtii caasiyaashii laga rari jiray baar ubax ee aadi jira suuqa xoolaha ama afgooya aadi jiray ama ceelasha aadi jiray, qaabkii loo farsamayn jiray ayaaba loo sameeyay. marka dadka noloshooda waa muhiim. dadka haddii laga ilaalinayo kuwa isqarxinaya ee dhibaatada u geysanaysa, haddii laga ilaalinayo kuwa diyaaradaha wadana waa sida kuwa dadka qarxinayo kale in loo ilaaliyo, waa in la kontroolo. waa sababtoo ah ninkan diyaaradda iskale dantiisa kama fikirayo, danta dadkana kama fikirayo. macnaha dantiisa bas uu ka fikiraya, danta dadka kama fikirayo. marka waa muhiim dowladdu inay kontroolo